بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كلنتي wanaagsan meel kasta joogtaan kusoo dhawaada barnaamij aan uga hadli doono qaarijiinta iyo shirqoolka hogaamiyey siyaasadda Xamaas loogu geystay magaalada Tehran ee caasimadda dalka Iiraan. sidoo kale barnaamijka daawadayaal waxaa ku maqli doontaan waxyaabihii laga yiri dilkaas ama shirqoolkaas hogaamiyey Xamaas loo geystay duqeyntii xalay Beirut ka dhacday waxyaabihii ka soo kordhay si la mid ah hogaamiyey silsile ee Xamaas ilaa iyo hadda Israa'iil ay qaarajisay wadaadyaad nagu cusubta YouTube-keena ku soo biro subscribe noo saar Facebook page-keena follow soo dhig haddaad hore noola joogtana share iyo like noo saar si bulsho badan aan u gaarno. Waxaan ku bilownay warka ugu weyn caalamka ayaa amaanta hogaamiyihii siyaasadda Xamaas ee Ismaaciil Haniya oo lagu qaarajiyay xalay saqdhexe magaalada Tehran caasimadda dalka Iiraan. Ismaaciil Haniya oo la sheegay asaga iyo wafdi uu hogaaminaya oo ka tirsan Islaami Jihaad iyo Xamaas inay u joogeen Tehran ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha dhawaan la doortay Iiraan ayaa la sheegay xalay saqdhexe abaara labadii habeenimo ee xalay in lagu qaarajiyay guri uu ka deganaa magaalada Tehran. ilaa iyo hadda waxaan si sax ah loo ogeyn cidda qaarajintaas ka dambeysay inkastoo Iiraan iyo si la mid ah guud ahaan kooxaha ka dagaalama bariga dhexe iyo caalamku intiisa badan bay ku eedeeyeen Israa'iil inay ka dambeysay. sidoo kale tan waxaan la ogeyn waxa rasmiga ah ee dilkaasi loo adeegsaday inkastoo sidaas si la mid ah iyadana ay soo baxeen warar sheegaya in diyaarado dagaal Israa'iil ay leedahay oo nooca isqariya ay duqeeyeen guriga uu deganaa hogaamiyaha siyaasadda Xamaas Ismaaciil Haniya. falkan lagu qaarajiyay hogaamiyaha Xamaas ayaa saameyn badan ka dhaliyay dunida iyadoo caalamku si weyn ay u hadal hayaan ugana hadlayaan waxyaabaha ka dhalan kara duqeyntaasi ka dhalatay. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan oo Ismaaciil Haniya dalkeeda lagu qaarajiyay martiin u ahaa waxa uu sheegay dhiigga Haniya inuusan noqon doonin mid meel cidla ku daata. sidaas la mid ah Ruushka wasiirka ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka oo ka hadlay waxa uu sheegay inuu yahay shirqool siyaasadeed oo aan midaan la aqbali karin dilka Haniya loo geystay. wadamada ka hadlay ma yara sidaas la mid ah guud ahaan waxaa la cambaareynaya falkaasi lagu qaarajiyay hogaamiyaha siyaasadda Xamaas. sababta cambaareynta keenaysa waxay tahay inuu lafdhawr u ahaa wada hadallada xabad joojinta ee soconaya ee la doonayo in dagaalka iyo dhibaatada magaalada Gaza lagu soo afmeero. wada hadallada wuxuu ka qayb galay Qatar iyo si la mid ah magaalada Qaahira ee dalka Masar halkaas oo in badan wada hadalladu ay ka socdeen. sidoo kale tana qorshii uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka Xamaas way aqbashay laakiin dhanka Israa'iil si sax loogama aqbalin. Mareykanka lama malaynayo inuu dilay maadaama xaaladda bariga dhexe inuu uga sii daro Mareykanku uuna doonayn sida uu dhowr mar sheegay xaaladda ka dhalan kartana uu ogyahay inay ka sii dari karto. laakiin falkan waxaa fuliyay Israa'iil sida dunida inteeda badan ay isku raacsan yihiin. inkastoo Israa'iil militarigooda ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan sheegeen inaysan wax hadal ka bixin doonin falkaas lagu qaarajiyay hogaamiyey siyaasadda Xamaas. Ismaaciil Haniya qaarajintiisu ma aha hogaamiyaasha laga qaarajiyay Xamaas kaligiis. hogaamiyaasha waaweyn ilaa iyo hadda Israa'iil ay qaarajisay tan iyo aasaaskii Xamaas oo sagaashameeyadii la aasaasay waxaa la sheegay in ugu horreeyay Yaxya Cayaash in lagu magacaabo ah hogaamiyaha militariga Xamaas oo la qaarajiyay 1996 bishii January. sidaas la mid ah 2004 bishii Maars ayay qaarajiyeen aasaasihii Xamaas oo lagu magacaabo Sheikh Ahmed Yaasiin. isla 2004 bishii Abriil waxay sidoo kale qaarajiyeen ninkii la aasaasay Sheikh Ahmed Yaasiin ku-xigeenkiisana ahaa ninka lagu magacaabo Cabdicasiis Randisi. sanadkan ku jirna 2024 January magaalada Beirut ay Israa'iil sidoo kale ku qaarajisay hogaamiyihii siyaasadda Xamaas ku-xigeenkiisa ninka Saalax al-Caruuri oo la sheegay inuu ku sugnaa magaaladaasi Beirut guri uu ka deganaana lagu beegsaday. hadda oo la joogo July 2024 31deedana waxay qaarajiyeen hogaamiyihii siyaasadda Xamaas ugu sarreeyay Ismaaciil Haniya. guud ahaan kooxaha wax gacabinta Falastiiniyiintu way ka hadleen waxayna sheegeen inay midayn doonto quwadooda sidaas la mid ah aysan noqon doonin mid wax u dhibta maadaama hogaamiyaashaas ka horreeyaba dilkooda uusan marna joojin iska caabinta ay ku jireen. warka ugu weyn ee aan marna la filaynin ee soo baxay ayaa noqday in madaxweynaha kooxda Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas uu ku baaqay midnimo guud oo kooxaha Falastiiniyiinta guud ahaan ay yeeshaan. sidoo kale tan daanta galbeed waxaa looga dhawaaqay kacdoon iyo banaanbax Israa'iil ka dhana. waxa uu sheegay waxaan la aqbali karin inay tahay dilka loo geystay Ismaaciil Haniya sida uu sheegay madaxweynaha kooxda Falastiin Maxamuud Cabbaas. sidaas la mid ah waxaa ka hadlay ra'iisul wasaaraha Falastiin Maxamed Mustafa oo cambaareeyay falkaasi lagu dilay Ismaaciil Haniya midnimo guudna ku baaqay. ku-xigeenka xogayaha Islaamic Jihaad Maxamed al-Hindi ayaa sidoo kale sheegay in falkan lagu qaarajiyay Ismaaciil Haniya aanu kaliya saameyn ku yeelanaynin Falastiiniyiinta
iyo kooxaha iska caabinta, laakiin uu yahay fariin sidoo kale loo diray Iiraan oo dalkeeda lagu qaarajiyay. marka laga yimaado qaarajinta Ismaaciil Haniya magaalada Beirut koonfurta duqeyntii ka dhacday xalay sidoo kale warar ayaa ka soo baxaya inkastoo markii hore Xisbullah ay beenisay in hogaamiyaha la beegsaday halkaasi lagu qaarajiyay sida Israa'iil ay sheeganaysay. haddana wararka soo baxay waxay sheegayaan in hogaamiyahaasi marka beegsigu uu dhacay guriga uu ku sugnaa ilaa iyo haddana meesha uu ku sugan ilaa iyo haddana la ogeyn inuu badbaadiyo in kaletana aan la xaqiijin karin. dowladda Lubnaan waxay sheegtay 3 qofood in lagu dilay oo 2 ka mid ah carruur ay ahaayeen 74 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. sidaas si la mid ah dowladda Lubnaan waxay sheegtay in cawasho qaramada midoobay u gudbin doonto inkastoo aan la ogeyn qaramada midoobay oo awood uu Mareykanku ku leeyahay sida cabashadooda looga tixgelin doono. daawadayaal wixii barnaamij iyo warar ay ku soo kordha xaaladda bariga dhexe oo laga cabsi qabo inay uga sii darto dilka iyo duqeymaha Beirut iyo Tehran wararkeena dambe ayaad kula socon doontaan.